Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Dheere oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka Soomaaliland ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay heshiisiinta ummadda islaamka. waxaanu sheekhu si gaar ah uga hadlay beelaha walaalaha ah ee ku diraray ceelaf weyn haatana loo diray ergooyinka nabadeed. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay inay tahay sunna kawniya iyo arrin dabiici ah inay ummaddu isku dhacdo oo iskhilaafto, inay dadka kuwa isugu dhow iskhilaafi karaan. waliajli haadaa diintu ceeb kamay dhigin in la iskhilaafo, waxay saxaab diintu ku tilmaamtay khilaafku inuu noqdo mid waxa weeyaan wanaag ku dambeeya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamay laba kooxood oo muuminiinta ka mid ah hadday isdilaan dil iyo dhiig ayaa yimid, maca daalik muuminnimadii iyo iimaankii lagama qaadin ciddii isdishay, bal ilaahay wuxuu u sugay inay iimaan leeyihiin. faaslixuu baynahumaa, dhexdooda gala oo heshiisiya oo heshiisku dhexdhexaadiya iyo isu keenid. hadday midi qooqdo oo ay kibirto oo heshiiska mu'miniintu dhexdooda ay ku galayaan ay diiddo oo ay hoggaansami weydo, taa la wada dagaalama buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala, ilaa ay u soo laabanayso amarka alleh iyo shareecada alleh iyo qadaaga iyo xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddii ay soo laabato ay toobad keento, ha ku sii wadina faquuqa iyo dayirta dhexdooda heshiisiye oo cadaalad ku heshiisiye buu ilaahay subxaanahu wa tacaala. dhanka kale waxa uu sheekhu fariin nabadeed u diray beelaha halkaas ku dagaalamay. waxaan u diraynaa baaqaas diiniga ah ee shariiciga ah walaalaha isku dilaaya deegaanada sanaag iyo ceelaf weyn inay cafis qaataan xataa ka laga gardaran yahay, inuu ogaado ballanqaadka nebi moxamed inuu helayo, inuu ogaado ballanqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu helayo. hadduu cafis iyo musaamaxa la yimaado oo uu liqo wax ku qallooca, ilaahay wuxuu ugu toosiyo mooyaane waxba kaga xumaan ahayn. waxaan ugu baaqaynaa walaalaheen inay dhag u yeeshaan dhawaaqa ilaahay iyo dhawaaqa nebi moxamed sal alla alay wasalam, ee dhawaaqa reeraysan iyo ka siyaasadaysan iyo ka danaysan midnaba aanay dhag u yeelan. ugu dambayntii sheekhu wuxuu ayana fariin u diray ergooyinka nabadeed ee heshiisiinta beelahaasi u jooga deegaanka ceelaf weyn ee ay ka mid yihiin culimadii waaweyneed ee dalka. sida ilaahay subxaanahu wa tacaala, ilaahay waa inay ka cabsadaan, go'aankay gaarayaan waa inay ilaahay ku raalligeliyaan, makhluuq aanay ugu eexan uguna janjeersanin. qodobka labaad waa inay cadli iyo cadaalad ku sifaysnaadaan oo kay dad ugu jecel yihiin hadduu qaldan yahay waa inay waxa weeyaan runta u sheegaan. qodobka saddexaad waxa weeye inay yeeshaan dulqaad iyo waxa weeye sabir iyo adkaysi, inay iska ilaaliyaan xilliyada garta ay naqayaan, inay garta qaar ama dadka qaar ama labada daraf gartiisa aad u dhegaystaan, darafna gartiisa ay waxa weeye sahashadaan. waa jawrka qadaaga iyo xukunku halka uu ka bilaabmayaan culamada islaamku. bal ilculamaa waxay yidhahdeen culamada islaamku, qaadiga iyo garsoorka labada ishayaa markay hor yimaadaan laba majlis ama laba goobood oo fadhi oo kala wanaagsan hadduu kala fadhiisiyo qad jaara wadalam, dulmi iyo xadgudub buu sameeyey. iska daa wax kale oo cadaaladdu ma aha in dadku ay sinnaadaan. cadaaladdu waxa weeye ictaa'u kulli dii xaqin xaqahu, mid kastoo xaq leh in xaqiisa la siiyo, ee ma aha inay labadu isu wax wada qaataan. cali maxamed jaamac cali fahad, telefishinka saab, hargeysa.